la bedeshay laakiin sida YouTube kuma noqonaysa hadii password Gmail la bedesho kaliya tamana hadii password Gmail la bedelo YouTube ku saan imika uu ka naqdo durmile kama noqonayo waxaan u maleynayaa in channel ka wala delete gareey ma garanaysaa asasan u maleynayaa anu mana inay caadi u galeen oo channel ka delete leeyahay u maleynayaa anu saan u maleynayo wasaas waxaana bedesho passwordka marqaatiga xubinka Durdurmedia Media Group oo afar dadkii soo dhaafay shirkadda iskaga tagay marka cudurka ama dhibaatada ugu weyn ee shirkadda ku dhacday waxa geystay masar nidaami oo xubinka marka wasida marka dhibaatada qofka sameeyay waxa weeyaan nidaamiye aanu ma garanayo wali wuxuu sameeyay laakiin se maadaama uu imika aanu si eegaysa waxa dhacay waxa uu fiidiyaal badan yar eegay imika dadka qaarkood waxay leeyihiin nidaamiye macallin Durdurmedia ka tagay marka maadaama Durdurmedia ka tagay in uu horta YouTube-ka wax u geystay minayn ma garanaysaa marka hadii uu ka tagay in uu waxa sameeyay minayn ma garanaysaa oo macna si dadkii kale uu biska tag laha ta kalena in ay iyagu isaga wax ku sameeyeen laga yaabaa sababtoo ah qofka YouTube-ka dhan delete gareynaya de kulli dad buu qabay macna wuxuu baa jiray marka ma la sii ogaaday micnaha baaritaanka shirkadda passwordkeedii dhowr qof ahaayay ama shaqaalaha ku soo biiro dhan Durdurmedia ayaa loo ogolaanayaa inay ogaadaan passwordka oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga maamulo YouTube-ka in qof walba uu haysto marqaatiga ku ah passwordka nidaamiye sababta waa xubinka shaqaalaha wali wuxuu ugu fircoonay Durdurmedia runtii inta qof ay ka soo shaqeysay si gaar ah si gudbo qofka kaliya aan ku kalsoonaa marka aniga marxaladeeda ka hadlayo safiican nidaamiye wahay qof kula shaqeynayo oo hoygaada degan oo muuqaaladana wax ka jira ka abad gareynayna sabab password lagu diido kale ma garanayo hadii passwordka loo diido wuxuu u maleynaa shirkadda in laga leeyahay nidaamka shirkadda waa laga yaabaa shaqaalaha iyo waxyaabo kale lagu cadayo laakiin waxa shirkadda ay leedahay in la wadaago waa dhaqan muddo soo jiro ahay marka sababtaas ana keentay runtii in passwordka uu gacanta ku haayo oo marqaati ka aado marka wuu nagu ciqaabo marka kaliya hadda waxaan ka marin karnaa in hal qof oo kaliya hadda kadib oo publish garay videoga muhiim macnaha anigu taa kula tirinay videoga hore soo dhayba macnaha waxa muhiim ah in uu hal qof ama laba qof ay password dhigayaan ay shaqadiisu inta noqoto macnaha edit garaa iyo video soo dhig labadii kun iyo anaga farxasida ahaan kullay team kala jiro xitaa lagu tuhmaayo wallahi way kamid yihiin laakiin ana farxasida ahaan askala hadlaya waxa lagu cambaareeyaa WhatsApp-kii lagu soo diraa commentiyada aan ku arkaa inaan qayb ka ahay asxaabta habada ka saartay ama ba aan ahayba Durdurmedia bal arintaas maxaad kaga falcelinaysaa hadii aad tiin madaxda Durdurmedia runtii Durdurmedia markii ay bilaabatay 2017 asaaskeeda qaybaan ka marka xamar joogay ilaa iminka way dhaceen isku day kala duwan oo nooga imaanay dad ka baxsan xeyndaarka Durdurmedia oo YouTube kala haadaano ama dad kale inta muuqaal aan ka soo gulano si ka doonno caroona haadaane marka marnaba raadku ma lahayn dhacdada ka dhacday YouTube kale ama maxaan ku raadayay sheega ama shirkadda YouTube naftigeeda raadku ma lahayn waayo qaabka marka YouTube u gashid hadduu YouTube ka ala waxa wada laga saaray oo deactivated hala hatta markaas waxa waran lahayn dhibaatada waxa ka damay YouTube kale markii passwordkii la bedelay janji password la sameeyay qofka new password sameeyay password cusub gashtay marka waa farxasida hadda ay hadlayso sidii inta laga dariiqtay maamulka gacanta u gashay ma fahanti marka sabab marka maxaan ku radaa YouTube ka lagu aanay ma garan karo laakiin way dhici kartaa bulshada aniga naftigeedu wasaaka markii dhacdaas dhacday oo dareen noocaas ay galab markii ugu horeysay badee cid ugu horeysay aan dareen noocaas ku timaa waa dadka challenge oo shirkadda kala dhaxeeyo laakiin markii aan xawraamay xogta rasmiga ah waxa ogaaday inay ka madax banaan tahay YouTube kale caadi ah oo laakiin asalku uu yahay numberka shirkadda oo aglaabkaas geystay gudoomiye shirkadda dhowr xubnood oo kala duwan soo maray way imaadaan way ka tagaan way imaadaan way ka tagaan maxaa ka wasgareeya marka laga soo gudbo teamkii hore laakiin nidaamiye isagoo 24 saac la soo dhaafay shirkadda memberka ahaa muuqaalo u duubay bedelmo go'aankiisa waliba si degdeg ah markii uu ka tagay kadibna ay arintan dhacday oo naxdinta leh maxaa ka wasgareyn kara asleedahay oo maadaama madaxda shirkadda tahay
والله وارنتا صوبت سؤاشاس سفيعا horta waxaan ku oran lahaa dadka youtuberada ee reer muqdisho ma xumo inaad qof ka soo jeesto oo wuxuu sameeyaa diidid ma xumo in aad qof videogiis ka soo tiraado waxaas waa qalasa sidaas inoo sax ma xumo inaad qof tiraado qofkaas uu qaldan yahay laakiinse arrimahan asu geysanaysiin ma qurux badna ee ah in ay youtuber baa soo dhigay laga bedeshay iyo in maxaa la qof tan caadi loo noqdo ma garanaysaa anu qof waa nacaa maadada nacaw jiraan laakiin sidii anigu saasoo kale kuma sameeyeen macnaha waxyaabaan aan sameynaysiin weligii ma arkin ba macnaha idinku waxaad gaadhsiisantihiin ba halkii ugu dambeysay ma fiicna waxaasi qof wad nici kartaa anu yidin maligiis jeclaada laakiinse de waxaad isu sameynaysiin waa qalad malaha anu waxaa odhan lahaa saan isku dhaama waa walaalkiin diris oo idinla hadlayaa khayr badan oo nii rajeynayaa waxaan rajeynayaa in uu dudumiliya usoo noqdo youtube-koodu fadlan ha isxaasidina معناها حولي بقى تاني وارد أذحن أنت هم لها خير بدل ما يرجيني فضلا هإلا وهذا عصوت يوتيوب شاكنا سبسكرايب شارك تصوت وحرر علينا بقول كي كانوا هني إلا ونقدر كي يجيب ديسكريبشن كهوست تايل كهلا سا وإنه يفيد قد بدو